ثم صلاة وسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد كلمة ما هدا أن دوبي إني مرك حاجة تذكر waxay ka cawda inaan si fiican usan kaliya u ahayn. Marka hadana maqlaysaan oo codkan uu soo gaarayo inoo soo qor insha Allah ta'ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadduu maqalka aad u wanaagsan yahay inoo soo sheeg insha Allah ta'ala. Barakallahu fiikum. ما شاء الله مقالكم في عين سوما الله يدين بركايو ملك السود جوتان إن شاء الله تعالى. الله يدين حفظيو سوى هذا انتين هذا تمد كل عنوانك نشوف قرنواد ما أركتين إن شاء الله تعالى. وفرين أدو كوبن أدو كوبن تهي فرين تانا ولا ليال وحان أقول تلقى لي لأن وحان في لي الأسبوع عند حديثة حين صدوا من فرين طلعه oo aan u dirayno gabar walaasheen iyo sidoo kale wiil Soomaaliyeed asagana de maxaan wadaad Soomaaliyeed kulli dadku waa qaldamaan laakiin alxamdulillah fariinta waxaan jawaabta u dirayna waa gabadha way oo soo jawaabtay oo wali fariin qoraal ah ku soo jawaabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa sidii ugu dhiiratay inay mar labaad ay soo qorto fariin jawaab celin ah ayadoo waliba qaadatay hadalka Ilaahay iyo hadalka Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam macnaheeduna uu ku tusinayo inuu qofka yahay qof iimaan leh ma qaldamana waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ibn aadamku dhamaantii waa qaldamaa laakiin qofka aan qaldamin waa Allah jalla wa ala saa awad walaalayaal fariintu marka waxaan u kala qaadeen labo wana kooban yahay kilibkan aad buu u koobnaan doona insha Allah ta'ala waxaan codsanayaa oo aad u codsanayaa sida shalay aad maaragtay u gaarsiiseen inaynu maaragtay gabadhaas walaasheen aynu wacdinay oo aan maaragtay khayrka u gaarsiiseen haddana inaad gurigeeda u gaarsiisaan insha Allah ta'ala oo ay aragto inaan shalay la damqanay maanta la faraxsanahay inaan shalay la damqanay oo ka xumaanay maanta aan ku faraxsanahay tilaabada wanaagsan ay ku dhaqaaqday laana mu'minka ama walaalka kale oo mu'minka wuxuu yahay muraayad ishu markay wax ku dhacaan uu ka fiirinaya saas oo kale sidoo xadiiska ku sheegay salaatu rabbi wa salaamu alayhi. marka waxaan isku nahay dad walaalo ah walaashi waxaan leeyahay koow waa ku bishaaranaya kitaabka Ilaahay aayad kamid aan ku bishaaranaya qowlka Ilaahay subhanahu wa ta'ala fi surati al-furqan ama surati al-furqan rabbi jalla wa ala waxa uu ku leeyahay aayadatan illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. qofka markuu xumaanta ku dhaco waxaa laga soo sheekay cibaadu raxmaan waxaa laga soo hadlay cibaadu raxmaan dadka wanaagsan baa laga soo sheekeeyay inaysan sameyn xumaanta inay dad wanaagsan yihiin marka la soo daldalay dhiig iyo maaragtay aysan waxbana geysanin dadka aysan dilin ay ku xadgudbin marka la soo amaanay si cibaadu raxmaan loo galo liiskooda loogu biiro ayaa waxaa leeyahay qofkii doonay inuu cibaadu raxmaan ku biiro Ilaahay leeyahay fiiri qofkii ka soo laabto xumaanta oo dhan إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله كتابك إلهي معانك ولي فيري حمان مركا كان عضو هداد سولابت إلهي ولاك بدل يا فيري إلا من تاب إلا وحال قصر الاستثناوي قفك كسو لابتا أو وعمل عملا صالحا حمانتي مركي كل عي هدانا كسو لابتو لي ماذا ولاك محو سمي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كوا إلهي سبحانه وتعالى حمان تودي وحو بدله وناك وحو حمان كان حالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأتقرنا إنسان مركا تاريخ سنة كسر شكيني وناق وقبي اللي لو سلك طريقا لسلك الشيطان فجا آخر عمر هدو ودمره
shaydaanka kuma dhaco inuu wadiisa dabamaro waddo kaluu maraya nebigu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinkii uu dumarkii maarata nebiga ag fadhiyay ee xoogaa ay wax ka sheegeen ee nebiga markuu asagoo iyaga wax ka sheegayo intuu u yimid ay gabdhihii maarata ummahaatulmuminiin ee maarata hooyooyinkeenna ay kala yaaceen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cumar wuxuu ku yidhi haddaa wadda martid shaydaanka kuma dhaco inaa waddadaa martid salawaatu rabbi wasalaamu calayh maadaama uu nebiga sidaa yidhi cumar oo saas aad maqasheen oo saas loo ammaanay ayaa markuu toobad keeno ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenay ee ilaahay subxaanahu watacaala uu u laabtay cumar aayaddan ku faani jiray wuxuu dhihi jiray dunuub fara badan baa iga dhacday laakiin ilaahay wuxuu igu daray kuwaas fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat xumaanahoodii loogu beddelay wanaag xumaantay galeen baa waxaa loogu beddelay wanaag ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka codsanayaa biismihi alacdam idaa duciya ajaab in gabadha walaasheen iyo amtaasheeda iyo inta la midka ah ee intay xumaan ka dhacday soo laabtay ilaahay subxaanahu watacaala xusay ee gartay ee maanta soo sheegay ee yidhi waan ka laabannay oo beri baan ka nahay wixii aan galnay xumaantii waan ka noqonnay ummaddan u soo mahadnaqday wuxuu fideoan igu dhaliyey inaan u mahad celiyo waxaa idinka codsanaya walaalayaalow si gabadhu naftirkeeda u gaaraan annaku shalay markaan wacdinaynay een waaninaynay ee naga go'nayd inaan wax u sheegno hadafkanagu ma ahayn xumaan ayad u qabnay bal waan la damqanaynay oo naar baan kaga cabsanaynay laakiin mar hadday maanta ka toobad keentay oo qofka xumaanta ka soo noqday maxaa loo baahan yahay inaynu dhiiri gelinno u mahad celinno nidhaahna wax fiican baad samaysay khayr allaha ku siiyo waa dadaashay ummaddii wanaag baad u soo gudbisay meesha aad shala taagnayd waa ka soo laabatay maadaama meesha ay shala taagnayd ay ka soo noqotay waxaa idinka codsanaya insha allahu tacala saa shalayba khayrka ula cararteen oo uu u gaaray maanta 300 ku socdo 300 kun oo Soomaaliyeed inay kilibka yarka daawadaan uu ku socdo waxaan idin leenahay insha allahu tacala waxaad samaysaan haddana sheergareeya gabadhu ha gaaro oo gurigeeda ha ugu tago ha ku faraxdo ha dareento dadka walaalaheeda ha shala la damqaday maantana inay u mahad celinayaan ay leeyihiin waa dadaashay wax fiican baad samaysay khayr baad samaysay walaashay dib ha u laaban hore u soco waxaa weliba hadaladeeda ka mid ahaa isla habeenkiiba qoraalka waa la ii soo diray Soomaalidu dad khayr jecel wey isla habeenkiiba waxay soo gaartay fariintii ay gabadhu soo qortay laakiin aniga markii ma degdegin waxaan sugayay bal inaan ka dhulsugo gabadhii waxaan u diray message dheer fariin baan u diray isweydaarsano oo leeyahay walaalay maarta aad baad maasan tahay laakiin dadka Soomaaliyeed waa dad khayr jecel ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha siiyo waxay iga codsadeen inaan kilib soo duubo arrintan codsi walaalaha Soomaaliyeed oo ilaahay khayr ha siiyo sheekho shalay maraad ka hadashay maantana bal gabadhii u mahad celi waa ka qaatay waan arrin fiican waa la u dhiirigeliyey annaga waa ku faraxsanahay inaan gabadhaas laakiin waxaan gabadhaas gaarsiin karo saa shalay u gaarsiiseen fariintii canaanta ahayd shalay saad u gaarsiiseen fariintii canaanta ahayd maanta waxaa aniga idinka codsan inaad gabadha gaarsiisaan oo qof walba uu sheergareeyo oo qof walba uu gabadhaas ay maanta daawato isla kilib kale oo tusaayo raggii shalay qaylinayay ee ka dhawaaqayay ee ka xumaa ee ka murugsanaa inay maanta ku faraxsan yihiin kilib kale oo mahadnaq ah oon leenahay xumaantaadii biidni illaahi jalla wacala weliba toobatu ha noqo toobatu nasuuxa ma aha toobad keliya qoraal leh bal ilaah u laabo istikfaarta la imow ilaah uu ka maaragtay ku dambi dhaafaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu maalin kasta 100 jeer ilaahay subxaanahu watacaala u dambi dhaaf weydiistaa wamaca dalika laysa lahu dembi ma leh liyaqfira laka allahu ma taqaddama min dembika wama ta'akhar ilahay waa sagala dembigaaga hore iyo kii dambe ilaahay subxaanahu watacaala waa lagu dhaafo nabiga lahaa ayaa lagu lahaa wamaca dalika nabiga ilaahay buu u toobad keeni jiray ilaahay buu maaragtay u laaban jiray jeer ay xitaa habeenkii cibaadadiis way badnayd ay ku tiri umna Aisha radiyallahu ta'ala anha nabi allo maxaa sidatan habeenkii oo dhan cibaado iyo maaragtay ugu buuxinaysaa dee ilaahay dembigaaga hore iyo kii dambe waa ku dhaafay hadalkii macruufka wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi afala akunu abdan shakura miyaanan ahaanaynin adoon rabbi subxaanahu watacaala kaga mahadiyo xumaa maaragtay inuu subxaanahu watacaala garto marka ilaahay waa asaga ku lahaa waxaad noqotaa maaragtay kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ku shukriya bal illaaha facbud وكن من الشاكرين في سورة زمر مركب بل إلهي نعابد الشاكرين تركب من نقو إلهي أنت كم هذه السنة ويريه ولا ليالون إلهي واسقلها وقليل من عبادي الشكور أنت إلهي سبحانه وتعالى كم هذه السنة ويريه إلهي من كم هذنينا إلهي عرب كنا جوا أديك صدي إنه خير كفافه إلهي عرب كنا جوا أديك صدي إنه حمانته كبر برته إلهي عرب كنا جوا أديك صدي خيرك إلهي سام هذا سكال لا حول ولا قوة إلا بالله أود يا حالة ملهن وحنا نجرب ساقي ونعاوي ومدى الصوماليات وياكنا كيلبكي هوري شيرغريي مeel badan gaarsiiyay website Soomaaliyeed waliba aad baan ugu mahad celinaya dadkii kilibka hore qaaday wallahi shaqo fiican waad qabateen
aad baad u mahadsantihiin ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan wallahi idinkugu mahadinayaa jazaakum allahu khayra aljazaa allah idin barakeeyo gabadhaas wuu gaaray fariintii hore wayna markiiba way aragtay ayadoo gurigeeda joogto ama meesha goob walbay joogtaba fariintu way gaartay maantana waxaan codsanayaa inay fariintan gaarto ayadoo maaragtay meeshay joogtaba ay haddana daawato dadkii shalay la damqanayay ee qaylinayay inay maantana diyaar u yihiin la faraxsan yihiin gabadhii oo ka toobad keentay xumaantii marka ay ku jirtay ilaahayna subxaanahu watacaala u soo laabatay walaashayey ma qaldamo waa allah cidda aanan qaldamin waa ilaahay subxaanahu watacaala anigu dembi baan leeyahay adigu dembi baad leedahay cid walba way dembowdaa dembi waa dhacaa walba waxaaba jiraba xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ee uu ku leeyahay haddii aadan adigu dembaabi lahay waaba linka qaadi lahaa adduunkan kuwo kalaa lagu bedeli lahaa dembi wuu kaa dhacayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo ilaahay subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo soomaaliya meel walba joogtaan xumaanta aan isu kaashanno wanaagga aan isu kaashanno waxaan ka wada xumaanta aan iska celinno wanaagga maarata isu kaashanno ayadda ilahay baana kusoo gebagabeynayaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan war maaragtay ahaada kuwa isu kaashado wanaagga ha noqonina kuwa maaragtay xumaanta isu kaashado dad fara badan oo khayr jecel baa nagu jiro dad fara badan oo maaragtay aad noola soo xiriiray oo wallaahi maaragtay aad ugu farxay baa jiro laakiin ogaada annagu gabadha xumaan aan u qabanay ma jirin qisa idinkii sheekeynaya inuu ahaa baan filayaa saxaabi maarata asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah oo maaragtay marar ka mid abidar alghafaari inuu ahaa baan filayaa wallahu aclam bisawaab saxaabigaasa hadda kahor waxaa la yidhi waxaa u timid saxaabatu lkiraam wuxuu u yimid qolo saxaabada ka mid ah iyo qolo noocii rag buu u yimid nin garaacayo nin bay garaacayaan weliba ul bay ku wadaan kab bay kala daaleen markaas wuxuu ku yidhi saxaabigan daliilka ah war ka leexda ninkan iskaga leexda uu yidhi markaasay ku dhaheen maxaa kugu dhacay ma ninkay ma garanaysid miya hee ninkan dembi buu galay oo xumaan buu ku dhacayo aad bay maarata u sheegeen waa run buu yidhi xumaan buu ku dhacay laakiin su'aal mad weydiin karaa buu yidhi haa ka warra buu yidhi walaalkiin hadduu ku dhaco ceel hadduu walaalkiin kaga baxsado ceel oo ceel ku dhex dhaco ma ka soo bixin lahaydeen mise ku dayn lahaydeen markaasay dhaheen waan ka soo bixin lahayn fakadaalika waa la mid bay yidhi ninkan xumaan buu ku dhacay gacanta u haatiya oo soo bixiya oo ka soo jiida wuxuu ku dhacay saasoo kale gabadha walaashanaada iyo kuwa kaloo qalad ka dhacay annaka waa qaldannaaye gacan baan u haatinay alxamdulilah gabadhi gacanta way qabsatay oo khayrkii bay soo qaadatay wayna ka toobad keentay qoraal cad baan haynaa videona waan rajaynaa inay soo duubto laakiin intaasaa nagu filan weliba ayaantaana maanan arag xumaantii oo meesheedii maaragtay taagan baan maaragtay arki lahayn laakiin way ka toobad keentay saan rajaynayno maaragtay naxnu naxkum maaragtay adhawaahir waxyaalaha muuqdaan maaragtay xukuminaynaa wallahu yatawalla saraa'ir sirta iyo waxa qarsoon rabbi subxaanahu wa tacaala ayayna u daynaynaa markaa saxaabigaas su'aal baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi ninka kan miyaadan u caroonaynin ninkan xumaanta ku dhacay miyaadan u caroonaynin markaasuu yidhi u caroon maayo dembiga uu galay baan u caroonayaa amaa shakhsiyaddiisa waxbaan u caroon maayo qofku wuu qaldami karaa walaalayaal nebigan calayhi salaatu wasalaam asaga lahaa walaalkiin xumaanta ha ugu maaragtay kaalmaynna shaydaanka qofka markuu qaldamo in loo caqli celiyo la waaniyo farrintan maanta waxay ka dhigan tahay inaan tusno gabadhaas walaasheen inaan xumaantii ay ku jirtay aan ka korboonnay shalay laakiin maanta aan ku faraxsanahay inay ka soo laabatay ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo istiqaamaha ku siiyo istiqaamadu qofka markuu helo waxa uu sugnaanayaa istiqaama maxaa la yidhahdaa waa sugnaan wey luzuumu qofkoo laazimo daacada ilaahay subxaanahu watacaala kuwa sugnaaday ee rabbi subxaanahu watacaala uu sugay oo khayrka ku sugnaaday maxaa ilahay u ballanqaaday ilaahay subxaanahu watacaala fi suurati fusilad wuxuu leeyahay ina aladiina qaaluu rabbuna allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلهي سبحانه وتعالى في سورة فصلت وحا كل يهي سبحان الله العظيم كوا الفيرية سقناضو oo markuu dembi ka dhacay intii dembi ka baxaan ilaahay subxaanahu watacaala ku sugnaado ee khayr ku sugnaado hee maxaa dhacayo tatanazzalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ilaahay subxaanahu watacaala markay nafta ka baxayso malaa'ikatu raxma u imaanayso malaa'ikatu raxma ayaa u imaanayso waxay ku leedahay allaa takhaafuu war ha cabsanina oo ha murgoonina
ألا تخافوا ولا تحزنوا همرجن هنا عبسن وح ونكسن بك هريو حمانتي أشل الله صبرتي واتكتوبتي إلهي باتكو حرنتي هبقن وهمرجون وهولولن أي ليهن هولولن وهبقن وإلهي سبحانه وتعالى كحرنو وإلهي سبحانه وتعالى كو جعليا كم النقو مركز سمارة وليبا مارت لسود وينيا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنك أهولي إن الدنيا آخرة برب سبحانه وتعالى ليهي الله يدين بركة ولا ليالو كلمك إنان ديرين مربو muhiimkay waxa weeyaan gabadhaas u mahad celiyo oo niraahno farintaadi waan helay waana ku jawaabnay adoo annagoo faraxsan sii sheer gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah idin barakeeyo meel kasta joogtaan baarakum allahu fiikum codsanaya oo aad u codsanaya sida shalay baad maaragtay u gaarsiiseen inaynu maaragtay gabadhaas walaasheen aynu wacdinay oo aan maaragtay khayrka u gaarsiiseen haddana inaad gurigeeda ugu gaarsiisaan insha allahu tacaala oy aragto inaan shalay la damqannay maantana la faraxsannahay inaan shalay la damqannay oon ka xumaannay maantana aan ku faraxsannahay tilaabada wanaagsan ay ku dhaqaaqday lianna mu'minka ama walaalka kale oo mu'minka wuxuu yahay muraayad ishu markay wax ku dhacaan uu ka fiirinaya saasoo kale sida nabi xadiiska ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka waxaynu isku nahay dad walaalo ah walaashi waxaan leeyahay kow waan kuu bishaaranaya kitaabka ilaahay aayad ka mid aan kugu bishaaranaya qowlka ilaahay subxaanahu watacaala fi suurati alfurqaan ama suurati furqaan rabbi jala wacala waxa uu ku leeyahay aayaddatan ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan صaalixan faulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat qofka markuu xumaanta ku dhaco waxaa laga soo sheekay cibaaduraxmaan waxaa laga soo hadlay cibaaduraxmaan dadka wanaagsan baa laga soo sheekeeyey inaysan samayn xumaanta inay dad wanaagsan yihiin markii la soo daldalay dhiig iyo maaragtay aysan waxbana geysanin dadka aysan dilin ay ku xadgudbin markii la soo ammaanay si cibaaduraxmaan loo galo liiskoodana loogu biiro ayaa waxaa layidhi qofkii doonaya inuu cibaaduraxmaan ku biiro wuxuu ilaahay lee fiiri qofkii ka soo laabta xumaantoo dhan إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والله كتابك إلهي معانك أولي فيري حمان مركا كان عضو هداد سولا بتد إلهي وناك بدل فيري إلا من تاب إلا وحال غصر الاستثناوي قفك كسو لابتا أو وعمل عملا صالحا حمانتي مركي كدعي هدانا كسو لابتو لي ماذا وناك محوسمي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كوا إلهي سبحانه وتعالى حمان تودي وحقوق بدله وناك وحمان كان حالي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأتقرن إنسان مركز تاريخ سنة كسر شكيني وناق وقبي اللي لو سلك طريقا لسلك الشيطان فجا آخر عمر هدو ودمره شيطانك كما دعو inuu wadiis damaro wada kale maraya nabigu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu calayh maalinkii uu dumarkii maartay nabiga ag fadhiyay xogaa ay wax ka sheegeen nabiga markuu soo iyaga wax ka sheegayo intuu u yimid ay gabdhihii maartay ummahatul muuminiin ay maartay hooyooyinkeena ay kala yaaceen nabi maxamed calayhi salaatu wa salaam umar wuxuu ku yiri hadaa wada martid shaytaanka kuma dhaco inaa wadada mad salawaatu rabbi wa salaamu calayh maadaama nabiga sidaa yiri عمر أو ساس عد مقشان أو ساس لو أماني أيام مركو توبت كانوا إلهي سبحانه وتعالى أسو مارت أتوبت كاني إلهي سبحانه وتعالى أولابتي عمر آيات ده وكفان جري وحيقول يجري الذنوب فربضا ما يقدر عضي لكن إلهي وحيقول دار كواس فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حمانه دي لوجو بدل وناك حمان تيقلين بوحى لوجو بدل وناك إلهي سبحانه وتعالى وحنكعد صنيا باسمه الأعظم إذا دعي أجاب in gabadha walaasheen iyo amtaasheeda iyo inta lamidka ah ee intay xumaan ka dhacday soo laabtay ilaahay subxaanahu wa tacaala xusay ee gartay ee maanta soo sheegay ee yidhi waan ka laabanay oo beri baan ka nahay
ثم صلاة وسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد كلمة ما هدا أن دوبي إني مرك حاجة تذكر waxay ka cawda inaan si fiican usan kaliya u ahayn. Marka hadana maqlaysaan oo codkan uu soo gaarayo inoo soo qor insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. hadduu maqalka aad u wanaagsan yahay inoo soo sheeg insha Allah ta'ala. barakallahu fiikum. ما شاء الله مقالك في عين سوما. الله يدين بركة ملك السود جوتان إن شاء الله تعالى. الله يدين حفظي سود وهذا انتين هذا تمد كل عنوانك نشوف قرآن واد ما أركتين إن شاء الله تعالى. وفرين أدو كوبن أدو كوبن تهي فرين تانا ولا ليال وحان أقول تلقى الليل لأن وحان في لي الأسبوع عند حديثة حين صدوا من فرين طلعه oo aan u dirayno gabar walaasheen iyo sidoo kale wiil Soomaaliyeed asagana maxaan iraahdaa wadaad Soomaaliyeed kulay dadku waa qaldamaan laakiin alxamdulillah fariinta waxaan jawaabta u dirayno waa gabadha way oo soo jawaabtay oo wali fariin qoraal ah ku soo jawaabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa sida ugu dhiiratay inay mar labaad ay soo qorto fariin jawaab celin ah ayadoo waliba qaadatay hadalka Ilaahay iyo hadalka Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam macnaheeduna uu ku tusinayo inuu qofka yahay qof iimaan leh ma qaldamana waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ibn aadamku dhamaantii waa qaldamaa laakiin qofka aan qaldamin waa Allah jalla wa ala saa wada walaalayaal fariintu marka waxaan u kala qaaday labo wana kooban yahay kilibkan aad buu koobnaan doona insha Allah ta'ala waxaan wixii aan galnay xumaantii waan ka noqonay ummadan u soo mahadnaqday wuxuu video ugu dhaliyay inaan u mahad celiyo waxaan ka codsanay walaalayaal si gabadhu naftirkeeda u gaaraan annaku shalay markaan wacdinaynay waaninaynay naga go'onayd inaan wax u sheegno hadafkanagu ma ahayn xumaan ay u qabnay bal waan la damqanaynay oo naar baan kaga cabsanaynay laakiin mar hadday maanta ka toobad keentay oo qofka xumaanta ka soo noqday maxaa loo baahan yahay inaynu dhiiri gelino u mahad celino niraahna wax fiican baad samaysay khayr Allah ku siiyo waa dadaashay ummadii wanaag baad u soo gudbisay meesha aad shalay taagnayd waa ka soo laabatay maadaama meesha ay shalay taagnayd ay ka soo noqotay waxaan idin ka codsanay insha Allah ta'ala saa shalay khayrka ula cararteen oo uu u gaaray maanta 300 ku socdo 300 kun oo Soomaaliyeed inay kilibkeerka daawadaan uu ku socdo waxaan idin leenahay insha Allah ta'ala waxaad samaysaan haddana sheer gareeya gabadhu ha gaaro oo gurigeeda ha ugu tago ha ku faraxdo ha dareento dadka walaalaheeda ha shalay la damqaday maanta inay u mahad celinayaan ilayhin waa dadaashay wax fiican baad samaysay khayr baad samaysay walaashay dib ha u laaban hore u soco waxa waliba hadalada kamid aha isla habeenkiiba qoraalka waa la soo diray Soomaalidu dad khayr jecel way isla habeenkiiba waxay soo gaartay fariintii ay gabadha soo qortay laakiin ana markii ma degdegin waxaan sugayay bal inaan ka dhul sugo gabadhii waxaan u diray message dheer fariin baan u diray isweydaarsano oo leeyahay walaalay maarta aad baad ma san tahay laakiin dadka Soomaaliyeed waa dad khayr jecel Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ha siiyo waxay iga codsadeen inaan kilib soo duubo arintan codsi walaalaha Soomaaliyeed oo Ilaahay khayr siiyay sheekho shalay mar aad ka hadashay maantana bal gabadhii u mahad celi waa ka qaatay waan arin fiican waa la u dhiirigeliyay annaga waan ku faraxsanahay inaan gabadhaas laakiin waxaan gabadhaas gaarsiin karo saa shalay u gaarsiiseen fariinta canaanta ahayd shalay saad u gaarsiiseen fariinta canaanta ahayd maanta waxa aniga in ka codsan inaad gabadha gaarsiisaan oo qof walba uu sheer gareeyo oo qof walba uu gabadhaas ay maanta daawato isla kilib kale oo tusaayo ragii shalay qaylinayay ee ka dhawaaqay ee ka xumaa ee ka murugsanaa inay maanta ku faraxsan yihiin kilib kale oo mahadnaq ah oo leenahay xumaantaadii biidnillahi jalla wa ala waliba toobatu ha noqoto toobatu nasuuxa ma aha toobad kaliya qoraal leh bal ilaahay u laabo istighfaarta la imow ilaahu ka maaratu ku dambi dhaafaya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu maalin kasta 100 jeer ilaahay subhanahu wa ta'ala u dambi dhaaf weydiistaa wama dhalika laysa lahu dambi maleh liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ilaahay waasagala dambigaaga hore iyo kii dambi ilaahay subhanahu wa ta'ala waa lagu dhaafo nabiga lahaa wama dhalika nabiga ilaahay uu toobad keeni jiray ilaahay uu maaratu u laaban jiray jeer ay xitaa habeenkii cibaadadiisa way badnayd ay ku tiri umna Aisha radiyallahu ta'ala anha nabi Allah maxaa sidatan habeenkii oo cibaado iyo maarata ugu buuxinaysa ilaahay dambigaaga hore iyo kii dambe waa ku dhaafay hadalkii macruufka waxa uu yiri salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi afala akunu abdan shakura miyaanan ahaanaynin
addoon rabbi subxaana wa tacaala kaga mahadiyo xumaa maaragtay inuu subxaana wa tacaala garto marka ilahina waa asaga ku lahaa waxaad noqotaa maaragtay kuwa ilahay subxaana wa tacaala ku shukriya bal illaaha facbud وكن من الشاكرين في سورة زمر مركب إلهي نعابد شاكرين تلك من نقو إلهي أنت كم هذه السنة ويره ولا ليالون إلهي وأسجلها وقليل من عبادي الشكور أنت إلهي سبحانه وتعالى كم هذه السنة ويره إلهي من كم هذين إلهي من كم هذين إلهي عرب كنا جوا أديك صدي إنه خيرك كفافه إلهي عرب كنا جوا أديك صدي إنه حمانته كبر برته إلهي عرب كنا جوا أديك صدي خيرك إلها سام هذا سكال لا حول ولا قوة إلا بالله أود يا حالد ملهن وحنا نجرب استاجي ونعاوي ومدى الصوماليات وياكنا كليبكii hore sheer gareeyay meel badan gaarsiiyay website Soomaaliyeed waliba aad baan ugu mahadcelinaya dadkii kiliibka hore qaaday wallahi shaqo fiican waad qabateen aad baad u mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan wallahi idinku mahadinaya jazaakumullahu khayral jazaa Allah idin barakeeyo gabadhaas wuu gaaray fariinta hore wayna markii way aragtay ayadoo gurigeeda joogto ama meesha goob walba joogtaba fariintu way